kulan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamij wareedkeena qodobada aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka ah madaxweynaha Jubbaland oo soo saaray liiska musharaxiinta aqalka sare dagaal xoogan oo ka dhacay gobolka Bakool iyo faahfaahin laga helayo dagaalkaasi dib u dhac mar kale ku yimid qabsoomida doorashada xubnaha aqalka sare ee deegaanada Jubbaland koonfur galbeed oo magacaawday guddiga baarlamaan ee doorashada aqalka sare ciidanka dawladda Soomaaliya oo howlgalo qorsheysan ka sameeyay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan iyo madaxweynaha Puntland oo guddi magacaaway qodobadaas iyo qodobo kale aad ku daawan doontaan inta uu socdo barnaamij wareedkeena fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar oo muuqaalka la wadaag asxaabtaada aynu ku horeynay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu soo saaro liiska musharaxiinta doonaya inay u tartamaan xildhibaanada aqalka sare Axmed Madoobe ayaa maanta waxa uu la kulmay guddiga doorashooyinka heer federaal oo uu horkacayo gudoomiyaha guddiga kuwaas oo shalay gaaray magaalada Kismaayo si ay Axmed Madoobe kala wareegaan liiska musharaxiinta aqalka sare qaybta Jubbaland sidoo kale xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa ay la kulmi doonaan musharaxiinta aqalka sare ee la soo gudbiyay si ay kala hadlaan qabsoomida doorashada aqalka sare maamulka Jubbaland ayaa isku diyaarinaya in uu noqdo maamulkii ugu horeeyay ee dawlad goboleedyada ka jira dalka ee qabta doorashada aqalka sare sanadka 2021 geesta kale dagaal u dhaxeeyay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda oo kaashanaya kuwa Itoobiya iyo ciidamo ka tirsan al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay deegaamada Waajid ee gobolka Bakool dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii sida la sheegay al-shabaab ay weerareen saldhig ciidanka Itoobiya ay ku leeyihiin dhanka waqooyi ee degmada Waajid waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dadka degmada Waajid ayaa waxa ay sheegeen rasaasta isku adeegsanayeen labada dhinac ay ka soo gaareen khasaaro kala duwan khasaaro xoogan ayaa la sheegay in uu gaaray dadka shacabka ee ku nool degmada Waajid ee gobolka Bakool ciidamada Itoobiya ayaa la sheegay inay madaafiic ku garaaceen deegaano u dhow degmada Waajid oo lagu tuhmayo inay weerarkaasi ka soo abaabuleen xarakada al-shabaab balse aan la shaacin khasaaro ka dhashay madaafiicda ay ku garaaceen halkaasi ciidanka Itoobiya magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Jubbaland waxaa maanta lagu balansanaa in ay ka qabsoonto doorashada xubnaha aqalka sare ee Jubbaland ee ka soo galaya aqalka sare warar aan ka helnay madaxtooyada Jubbaland ayaa inoo xaqiijiyay in dib loo dhigay qabsoomida doorashada cilado soo baxay awgood waxa ku sugan magaalada Kismaayo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal waxa uu halkaas ka wadaa kulamo lagu dardargelinayo qabsoomida doorashada aqalka sare ee Jubbaland gudoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka koonfur galbeed Dr. Cali Saciid Fiqi ayaa maanta si rasmi ah u magacaabay xubnaha xildhibaanada golaha wakiilada ee qabashada doorashada aqalka sare xubnaha guddiga oo ka kooban 12 xubnood ayaa waxa ay iska dhex dooran doonaan guddoon iyaga oo ka shaqeyn doona sidii xildhibaanada golaha wakiilada koonfur galbeed ay u dooran lahaayeen xildhibaanada aqalka sare ee deegaan doorashadoodu tahay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya maamulka koonfur galbeed ayaa noqday maamulkii labaad ee magacaaba guddiga xildhibaanada ee doorashada xildhibaanada aqalka sare iyadoo ay hore u magacaabeen maamulka Jubbaland maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 25 bisha 7 2021 ayaa qorshuhu ahaa inay bilaabato doorashada xildhibaanada aqalka sare balse ay dib u dhacday sabab la xiriira dawlad goboleedyada oo aan badi dhameystirin habraaci loo qaban lahaa doorashada xildhibaanada aqalka sare ugu dambeyntiina madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ayaa si rasmi ah u magacaabay guddiga qabanqaabada iyo diyaarinta xafladda xuska maalinta 1 Agoosto oo ku beegan markii la dhisay maamulka Puntland xubnaha guddiga kuwaas oo ka kooban 7 xubnood ayaa badankood ah wasiirada madaxweynaha Puntland waxaana ay kala yihiin magacadooda lambar 1 Xasan Sharic Cabdi wasiirka wasaaradda maaliyadda gudoomiye Lawa Cabdisamed Maxamed Galan wasiirka wasaaradda amniga iyo DDR-ta Aamino Cusmaan Jaamac wasiirka wasaaradda haweenka Jaamac Faarax Muuse wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Cabdisalaam Saciid Faarax wasiirka xogeenka wasaaradda warfaafinta iyo Cabdi Xasan Xuseen taliyaha ciidanka booliiska maamulka Puntland iyo waliba Maxamed Cabdirashiid Cali agaasimaha guud madaxtooyada
ee Puntland. daawadayaal waxaa halkaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamij wareedkeena oo aad ka daawanayseen channelkeena. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee halkan ka daawada muuqaalada iyo warbixinada aan halkan soo gelino. waanu ku mahadsantihiin daawashadiini. fadlan muuqaalka noo sheer gareeya si uu u gaaro saaxiibo badan oo adiga kala wanaagsan. waa mahadsantihiin.